السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتو شربت بدن ee ku xiran channelka. Qof kasta oo inaga mid ahi wuxuu leeyahay riyooyin uu doonayo inuu kaga rumeeyo maalin uun. Laakiin dad faraku-tiris ah ayaa kaga rumeeya riyooyinkooda. Haddaba su'aashu waxay tahay maxay dadkan yar ee riyooyinkooda kaga rumeeyaa ay kaga duwan yihiin dadka kale ee aan riyooyinkooda kaga rumayn. Haddaba waxaa jira sifooyin ay leeyihiin dadka guusha gaadha oo ay kaga duwan yihiin dadka kale. Muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa 10 calaamadood ee ugu weyn ee ay leeyihiin dadka nolosha guusha ka gaadha. Haddii sifooyinkan adigaagan idaawanaya aad leedahay marnabana aad isdhiibayn nolosha meesha aad doonaysa waad ka gaari kartaa hadduu alla idmo insha Allah. Calaamada koobaad ayaa ah in aad tahay qof aan shaki yarna kaga jirin nolosha uu doonayo. taas oo ay micnaheedu tahay in ay kugu qorshaysan tahay nolosha aad doonayso mustaqbalka noocay noqon doonto ayna jiraan hadafyo cad oo aad doonayso inaad kaga rumaysid. haddii aan tusaale soo qaadano waxaad iminka qorsheeytaa in 5 sano ee soo socota aad business bilaabi doontid amaba iska dheh in 3 sano kadib ay kugu qorshaysan tahay inaad jaamacada dhammaysid shaqada riyada ee aad wax u baratayna aad ka bacdi bilowdid. haddii aad leedahay calaamadan noloshaadan ay jiraan hadafyo cadcad oo aad doonayso inaad gaartid waqti cayiman gudahood waxaad ogaataa inaad dadka kale ka horeysid 10 tallaabo. dadka badankoodu way iska soo kacaan subaxii iyagoo aan lahayn hadafyo iyo yoolal. calaamada labaad ee iyaduna muhiimka ah ayaa ah markasta waxaad jeceshahay inaad wax cusub baratid. calaamadaha ugu waaweyn ee dadka guusha gaadhay ay leeyihiin waxaa ka mid ah inay jecel yihiin in ay maalin kasta wax cusub bartaan. siyaabo badan ayaa wax ku baran kartaa oo aad maskaxdaada ku kobcin kartaa. tusaale ahaan waxaad akhrisan kartaa buugaagta is-horumarinta kuwaasoo aad runtii faa'iido weyn ka heli doontid. haddii maanta aad doonaysid inaad business furatid oo aadan wax macluumaad ahna haba yaraatay ka hayn sida business loo abuurto waxaad helaysaa buugaag sida qoraxda kuuga caddeynaya wixii mugdi kaaga jiro. wax kasta oo aad u baahan tahayna kaa jaahil saaraya. waxaad kale oo aad daawan kartaa kanaalada dhiirigelinta YouTube-ka iyo weliba website-yo badan oo iyaguna aad ka helayso casharo ku anfacaya. calaamada saddexaad ayaa ah in aad tahay qof isku kalsoon. waxaad ogtahay awoodda ay leedahay kalsoonidu iyo naftaada inaad ku kalsoonaatid. marka aad isku kalsoon tahay waxaad ku dhiiranaysaa inaad samayso waxyaabihii aadan markii hore aaminsanayn inaad samayn kartid. way fududahay inaad naftaada aaminto iskuna kalsoonaatid marka qof walba ku aaminsan yahay. laakiin dadka isku kalsoon waxay kaga duwan yihiin dadka kale iyagu markastaba naftooda way ku kalsoon yihiin xataa haddii adduunka oo dhan ay ka soo horjeestaan ama ay isku dayaan inay cadaadiyaan. haddii aad tahay qof naftiisa ku kalsoon wax kasta uu doonayo og inuu kaga rumayn karo waxaad ogsoonataa inaad 95% ka horeysid dadka badankii. calaamada afraad iyaduna aadka muhiimka ayaa ah in aad tahay ficil qaade. markaad bilaabaysid wax cusub waxaad ogtahay inaad turinturoonayso oo aad dhici doontid laakiin taasi kaama hor istaagayso inaad tallaabo u qaado hadafkaaga sababtoo ah waxaad ogtahay inaad waddada guusha haysatid aadna guulayso doontid waqtiga soo socda insha Allah. xaqiiqda nolosha ayaa ah in qof walba uu haysto fikrad fiican. fikradda fiican ee ay haystaan waxaa dhacda in dadka badankooda aanay ficil samayn si ay uga madhadhaliyaan fikirkaas. taasina waxay keentaa in fikraddii fiicneed halkii ku dhammaatay. haddii aan u soo noqono dadka guulaysta waxay iyagu markiiba bilaabaan inay ku dhaqaaqaan sida ay uga madhadhalin lahaayeen fikraddaas. waxyaabaha la caddeeyey in dadku waqtiyada dambe ee noloshooda ay ka qoomeeyaan ayaa ah in fikradihii iyo riyoonkoodii aanay kaga rumayn ficil qaad la'aan darteed. ha noqon sida dadka badankood iskuna day inaad ku dhaqaaqdid kaga rumaynta fikradahaas fiican ee kugu jira. qodobkan shanaad ayaa ah wax kastoo aad bilowdid waxaad jeceshay inaad dhammaystirtid. dadka badankoodu uma suurta gasho amaba kuma dhiiradaan in ay dhammeeyaan wax kasta oo ay bilaabaan. calaamadaha dadka guulaysta lagu yaqaano waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka mid ah ayaa ah arrintan. wax kasta oo ay bilaabaan waxay jecel yihiin in ay dhammaystiraan. ha ahaato bug ay akhriyayaan, ha ahaato mashruuc ay bilaabeen, ha ahaato caafimaadka iyo jidhiska. wax kasta oo ay bilaabaan waxay jecel yihiin in ay dhammaystiraan. calaamada lixaad ee iyaduna muhiimka ah ayaa ah in aadan ka baqan guuldarrada. guuldarradu wax kale maaha oo aan ka ahayn inay tahay fursad aad mar labaad si fudud ku bilaabi kartid adigoo markan labaad uu kuu kordhay caqli badan oo aad ka heshay fursaddii hore ee kuu socon weyday. guuldarradu waxay kuu tahay cashar aad wax ka baratid. adduunkan dadka meesha fiican ka gaadhay waa kuwa ugu guuldarrada badan. waxay heerkan ay joogaan ay ku gaadheen isdhiibitaan la'aan. guuldarradii fara badnaa ee soo marayna waxay u noqdeen casharo ay wax ka barteen. casharadaas oo ka caawiyey inay gaaraan meesha ay doonayeen iminkana ay joogaan. waxaan maalin dhow daawanayay taariikhda nin bilyaneer ah oo lagu magacaabo Jack Ma. Jack Ma waa ninka ugu taajirsan dalka China. ninkan taariikhdiisa markuu ka sheekeynayo waad yaabaysaa. markii uu dhalinyarta ahaa wuxuu 10 jeer codsaday jaamacad lagu magacaabo Harvard University. 10kii jeerna waa loo diiday. mar kale ayaa iyaduna jirtay oo meesha uu joogay
laga furay dukaanada cuntada lagu gado 24 qof oo uu ka mid yahay ayaa codsaday shaqadaas 23 kale oo qof way heleen aan ka ahayn isaga haddaba su'aashu meesha la weeye maxaa dhici lahaa haddii uu isdhiibi lahaa waqtigaas calaamada toddobaad ayaa ah in aad tahay qof ka shaqo badan dadka kale waxaad og tahay muhiimadda ay leedahay in labalaabkeed inka badan aad ka shaqo badnaatid dadka kale ay kaa caawinayso si aad ugaga rumayso riyooyinkaagaas waqtiga ay dadka badankoodu ku mashquulsan yihiin social media iyo wax aan faa'iido ugu soo galeen waxaad ku guda jirtaa kaga rumaynta hadafyadaada run ahaantiina arrintani waxay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee kala saara dadka guulaysta iyo dadka kale calaamada sideedaad ayaa ah waqtigaaga waxaad ku bixisaa arrimo wax soo saar leh waxaa si fiican kaaga dhaadhacsan muhiimadda uu leeyahay waqtigu sidaa darteedna waxaad isku dadaa inaad daqiiqad kasta qorshaysatid iskuna dadid inaad ka faa'iidaysatid maalin kasta waxaad leedahay hadafyo iyo yoolal kuwaas oo aad waqtigaaga badankiisa ku isticmaashid waxaad isku taxallujistaa inaad qorshayaasha maalinlaha ah ee muhiimka ku ah aad dhammaysatid calaamada sagaalaad waxaad qaadataa 100% lahaanshaha go'aanadaada marka ay wax ku hagaagi waayaan ma eedaysid dadka kale go'aankaasna adaa 100% lahaanshiisa qaata waxaad og tahay in wax faa'iido ah aanay soo kordhinayn eedeynta dadka kale taas meesheedana waxaad ku bedeshaa inaad diiradda saartid sidii aad u xalin lahayd dhibtaadaas markay qaadatid lahaanshaha go'aanadaada iyo ficiladaadaba waxaad ogaanaysaa inaad adigu xakamayso noloshaada wixii mushaakil ah ee kaa hor yimaadana aad iska caabin kartid qodobkan ugu dambeeya ayaa ah waxaad daryeeshaa naftaada jirkaaga iyo noloshaadaba isdaryeelidda naftaada waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa guulaysiga noloshaada waddada guushu waa mid dheer wax badanna waad la kulmaysaa murugo iyo walaacba marka ay waxyaabahan yimaadaan waxaa muhiim ah inaan nafteena iyo jirkeennaba aynaan ilaabin waxaad naftaada iyo jirkaagaba mudnaan ku siin kartaa waa adigoo nidaamiya cuntada aad cunaysid jirkaagana aad siisid jimicsiga iyo dhaqdhaqaaqa aad u baahan tahay haddii daawad video uu qanciyey لايك iyo subscribe tan laga ilaawin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.